bismillahi raxmaani raxiim. maanta waxaan ka hadlaynaa wax la yidhaahdo grammarka kii koobaad oo sentence la dhisayay ama simple present tense, waxa maalin walba joogtada loo qabto grammarkii ka hadlayay ama tenniskii u qaabilsanaa. Okay, good. maanta waxaa leenahay simple present tense expresses waxa uu caddeeyaa wax ka sheega the routine, marta a routine action, wax mar walba dhaca oo soo noqnoqda. tusaale ahaan, my father aabahay wears a glass, muraayad ayuu xidhaa. marka waxa weeye wax maalin walba uu xidho oo soo noqnoqda. The sun rises in the east, cadceedu waxay ka soo baxdaa bariga, waa wax mar walba ka soo baxa. The children go to school, carruurta iskuulka ayay ku tagaan by bus. marka mar wax kasta oo mar walba dhaca ayuu simple present tense ama present tense kaligiis uu ka sheekeeyo. Okay, Mary enjoys singing. Mary waxay ku raaxaysataa ama ka heshaa heesaha. Peter sometimes lends me his bike. Peter waxa uu marka Peter wuxuu amahya ama ii dhiiba baaskiilkiisa marmar. marka eriyadan oo aan geliyay maaragtay aan waaweynay, yani aan booldiga ka dhigay, waa eriyada sheegaya simple present tense. inta kale waa tenniskii, waa sentence-kii waxa bedelaya sentence-ka, yani oo present ka dhigaya muxuu ahaa waxaan joogtada ah. marka rises way soo baxdaa, wears wuu xidhaa, wax maalin walba go way tagaan, enjoys way ku raaxaysataa, muxuu ahaa lends way ii dhiibaa, maaragta wax maalin walba la sameeyo. maaragta cows, marka cows waa jamac, ya waa day bay ka dhigan tahay maogta. muxuu ahaa xooluhu ama lo-du mar walba waxay cunaan garaas, cawska. eat waa maalin walba wax la cuno. monkeys, daayeerku like bananas, muuska uu jecel yahay, wuxuu mar walba jecel yahay. Tom ninka la yidhaha collective stamps wuxuu ururiyaa stambiyada oo lagu nabo marka boosaha. The earth dhulku goes around the sun, cadceeda ayuu ku wareegaa, waa waxuu mar walba sameeyo. It often snows in the winter, inta badan jiilaalkii waxaa daa baraf, wuxuu mar walba inta badan uu do oo sameeyo. We always wash our hands before meals, mar walba intaanan wax cunin gacmaha ayaan dhaqnaa, wax mar walba la sameeyo. We eat 3 meals a day, maalintii 3 jeer aan cunaa, wax maalin walba la sameeyo. Our father takes the dog for a walk every morning, kana ka dabo ka cadeynaa subax kasta aabahay ayga ayuu magaranaysaa kaxeeyaa oo soo daaqsiiya. marka waa sidaas. markaas simple present tense marka dhacdadiisu waxa weeyaan waxa garan maalin walba dhaca ee la sameeyo weeyaan, maaragtay. marka inta grammar kale aad ayaan u gali doonaa. intan marka waxaan ku soo gaabinayaa simple present tense aan sameynay. aad ayaa idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka haddaan yar ku laabto, simple present tense-ku waa 12 tennis ee afarna presentiga ahaayeen, afarna baaska ahaayeen, afar ay weli gelinba, weli ma inaan guda gelin. kan waxbadii u horeysay ma ogtahay oo ah dhacdo maalin walba dhacda, waxaa la yidhaahdaa grammarka ka turjuma simple present tense. marka inay la fahanteen baan jeclahay. waxaan rabaa videoyada in asla aan soo gaabiyo, saan usoo gaabin karo magaras iyadoo macnaheedii ay xambaarsan yihiin aan idin soo gudbiyo ayaan rabaa. marka aad iyo aad baan idin soo walaalaha qaaliga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.